nin dhakhtar oo Jarmana ayaa wadannadaas ayuu airport ayuu markaa diyaarad buu magaalo kale u raacay nin dhalinyaro oo muslima ayaa markaa suuratul kahf qisadaas risaalad yar oo culimadu ay ka qoreen oo tafsiirka quraanka una wax kale ayna ku darin oo luqada jarmalka lagu qoray lagu taabacay ayuu markaa yarkii dadka u qaybinayay dadkii diyaaradda sugayay kuraasada ku fadhiyay ninkan waa nin professor oo dhakhtar oo rag adduunyada xagga dhakhtarnimada ugu aqoon badan buu ku jiraa laana wadanka jarmalku waa wadanka lagu sheegay la yiraahdo waa wadanka adduunka ugu aqoon badan xagga dhakhtarnimada loo doonto caafimaadka ilaahay bana caafimaadka ayaa ilaahay baa wasaaradda caafimaadka lagu oran laakiin wasiirka dhan ee caafimaadku u bukaa balka waran sheekh wasaaradda caafimaadka wasiirka dhanna u bukaa nin baa lanagu yidhi ninkan wuxuu madax ka yahay hay-adda ka hortagga masiibooyinka dabiiciga markaasaa ku yidhi reerkaaga imsa masiibo ku dhacday wuxuu yidhi inankayga weyn baa iga waalan buu yidhi waalan yahayba dee baad ka hortagtidaa waxba kama hortagi karo insaanku waa daciif wakana alinsaanu daciifa khuliqa alinsaanu daciifa ilaahay baa sheegay daciif marka wadanka dhakhtarnimada lagu amaano ninka marka ka soo jeeday risaaladuna luqadooda ku qorneed marka yarkiiba uu tuuray oo siiyay oo qaado marka handbag uu gacanta ku sitay iskaga riday waa nin mashquul ninkani laakiin taraaga diyaaradda uu raacay min wadan ilaa wadan ayaa saacado dhan uu soconayay markuu kursiga fadhiisto hawlihiisii wixii uu egeeganay uu dhameystay buu xasuustay yiri kii yaray airportka aad ku aragtay muslimka ahaa warqadii uu ku dhiibad halka ku ridatay bal soo saaray aayadaas markaas dul taagay wa nuqallibuhum dhata al-yamini wa dhata al-shimali dhalinyarada ilaahay baa yidhi marka ay jiifaan marna midigtaan u bedelnaa baa ilaahay yidhi marna xagga bidixdan u dhignaa say u daalindee ila qofku xaggan hadduu u jiifo un xaggan xanuun baa gaadhaya jirhkiisa waan qallibnaa baa ilaahay yidhi laakiin ayga ilaahay markuu ka warramayay wuxuu yidhi وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط أيغو يسقو لما قلبايو أيغو سدو سحدا واد ركتين ده سدا سو سحدا سوى بوغن دول كدغا وحو يدي marka ninkii wuxuu akhristay bini aadanka markay jeefaana waxa la quraankan uu sheegaya in la qalibayo asxaab al-kahf oo marra xaggan loo rogay marra xaggan loo rogay laakiin ayga maxaa loo rogi waayay buu waana cilmiga baara markuu wadankiisii tagay oo dhakhtarkiisii ku noqday ayuu qalabkiiba baaray oo qoon wuxuu baaray marka dubkii bini aadanka ilaa waxaan way wada haystaan moogta dubkii bay eegeen qalab buu ku eegay inta saacadood dubka bini aadanku dhulka dulooli kara buu soo saaray ayga haddana wuxuu soo saaray bogiisii markaasuu soo saaray haddana ma aragtaana inta sane aygu bogiisu oo dhulka dulooli kara lagu hayn karo sanawaad qurunan markaasuu yidhi cilmigan ninka keenay baan u baahanahay buu adduunka waayo markaasaa muslimiin buu raadiyay uu la hadlay uu la xidhiidhay waxaa la yidhi waa qur'aan waa tanziilu min rabbi alcaalamiin munazal goor baana qur-aanku soo degay 14 qarni ka hor baa laga joogaa qur-aanka inta soo degay dhowr iyo 40 sano أيونا دوشي كسو دقي محمد عليه الصلاة والسلام نبي الأمي نبي أمي آيا قرآن كدوشي سلقو سودجي أمي بالليلي إساقنا وحما قرو وحا الله قرآن ما آخرين كربا الليلي قرآن كالنبي قس صفات كإلهي وكشيغي النبي قلنا وكفانو يري نحن أمة أمية أنك وحانا هي أمة أمية وحنا ما أخرنا بقى النبي يقول وحنا ما قرنا أمة داس القرآن كوسو دقيقة ورما القرآن هو معجزة ويا معجز